wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya waxa ay sheegayaan in madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu awoodii wareejiyay oo xilkii uu ka degay waxaana madaxweyne cusub loo magacaabay Axmed Cabdi Sheekh Maxamed waxaana arintani ay ka dambeysay kadib qalalaaso dhowr maalmood ah oo ka socday gobolka Soomaalida ee wadanka Itoobiya waxa kale oo qalalaasuhu ka dhacayna magaalada Diridhaba oo la sheegayo in 9 qof oo reer Djibouti ah lagu dilay magaaladaasi Diridhaba ciidamada federaalka ee Itoobiya oo ayaa la sheegay inay la wareegeen goobaha muhiimka ah ee magaalada Jigjiga iyadoo warbaahinta Itoobiyana ay ku waramayso in wada hadallo ay u socdaan dowladda federaalka ee Itoobiya iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba ONLFta Christopher Farah oo BBC-da ka tirsanaya iminka stuudiyaha ila jooga Christopher in xaaladan hadda jirta horta maxay ku bilaabatay arintan waxay ku bilaabantay goortii uu madaxweynihii hore ee qaybta Soomaaliyeed wararku ay sheegayaan inuu doonayay inuu qaybta Soomaaliyeed ay ka go'do Ethiopia taasoo ay arintaana ku xidhnayd khilaafa ama isgaranwaa isagiyo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed labada mas'uulna waxay isku haysteen maamulka sideeba maamulka dalka loo bedelaa iyo arinta kale la isku haysteen waxay ahayd khayraadka ka soo baxaya ogaadeen sideeba loo qaybiyo khayraadkaas yani gobolkaasi baa la sheegay in shidaal laga helay waxyaabo la isku hayay kamid ahayd baad leedahay shidaalkii durba waxaan malayaa inaad durba laga soo saaro shiinuhu way bilaabay inaad laga soo saaro dhulka khayraadkaasi ka soo baxayay yaa is-afgaranwaa baan malayaa ka dhacay taasoo ay tahay inta dowladda sare ee federaalka u soo noqonaysa iyo inta dowladda hoose ee regionalka labadii maalmood ee ugu dambeysay marka xaaladdu marka dambeysay way isbedelaysa rabshadaana ka dhacay haddana waa tan madaxweynihii uu xilkii ka degay oo madaxweyne cusub la magacaabay bal hadda dadka u dulmarto waxa ugu waaweyn ee dhacay maxay ahaayeen waxa ugu waaweyn waxay ahayd horta kolkay ciidankii federaalka jigjiga la geeyey ay dad badan ay ka caroodeen ay ka bannaan baxeen kolkii dambena rabshado badan baa ayaa ka dhacay rabshadahaas waxaa ka mida kiniisooyin la gubay waxa ay noqotay inay dad Soomaali ka tirsaneen inay naftooda u baqdeen ay kolkii dambe xidka dhaafeen oo ay u qaxeen waxa la leeyahay Soomaaliland u qaxay kolka waxay ku tusaysaa arintu waxay isku bedelmaysay arin qoloqoleed ama arin qoomiyeed aad baad mahadsan tahay Christopher Farah